You have a project normally 5 years or 6 years. Now 1 year is done, and there is expectation after 1 year what you are expected to do, and that's what they are measuring. Deliverables and the outcomes, which you all know. So this review is very important. It's very important for us. And therefore, we are here to convince everybody, one, that we are very open. Within the last, 18 months or so, we received a commitment of about $1 billion. About $1 billion. $1 billion projects, almost $1 billion projects approved, not implemented yet, approved at various levels of implementation. ugu weyn ee laga wada hadlayay wuxuu ahaa hadba sida ay u fusho mashaariicdaadu iyo sida aad loo isticmaalo lacagtii waqtigii loogu talagalay yaa waxa la ekaanaysa markaa maaragtay dhaqaalaha loo qoondeynayo Soomaaliya waxay ku xiran tahay sidaan u fulino alxamdulillah kuwa horena waxay marayaan meel fiican lacag ka badan $1 bilyan baa ilaa imanka maaragtay $2 bilyan ku dhow baa wadanka maaragtay marka laga bilaabo because waxay inoo yimaadeen oo mashaariicdii u horeysay bilaabantay waxay bilaabantay 2015 bay mashaariicda caadiga bilaabantay marka la isu geeyo mashaariicdaas iyo kuwii xidhmay lacagtooda aad bay u badan tahay dhammaantoodna waxay ahaayeen wax wadanku ka faa'iideeyay oo maaragtay waxayna soo maraan oo ay kaga duwan yihiin hay'adaha kale bangiga adduunku waxay kaga duwan yihiin lacagta ay soo diraan oo dhan waxay soo mariyaan nidaamka dawladda ay soo mariyaan marka waa shaqo la isla qabtay bangiguna waxa weeyaan waa runtii wax weyn bay ka qabteen Soomaaliya maaragtay ummadda Soomaaliya platformkan waa platform aad maaragtay muhiim u ah abuurayana fursad dadka mashaariicda World Bank maamulo oo dhan ay ku sheekaysan karaan aynu ku xallin karaan wax walba caqabada soo wajaha si wada jira wuxuuna ka dhaxeeyaa dawladda federaalka Soomaaliya iyo World Bank marka waa fursadda kaliya ee looga sheekaysan karo si wada jir ah waxa looga qaban karo caqabadaha imaan kara ama mar walba ay la kulmaan dadka mashaariicda World Bank maamulo waxaa ka soo baxayo in annagana aan muxuu ahaayay sheegnay waxyaabihii aan aragnay oo culayska nagu ahayo muxuu ahaay mashaariicda shuruudihii maartay bangiga oo kale waxyaabo badan oo waxaa jira wadanka dhibaato ku noqonayo mashaariicda dib u dhac ku samaynayo oo daahinayo iyo annagana waxyaabo badan oo muxuu ahaay nogala baahnayo aan la rabay inaan fulino la rabay sida muxuu ahaay marka la fiiriyo mashaariicdii waqtigooda in lagu fuliyo oo laga faa'iideysto in ay ka wada qayb galaan muxuu ahaay qaybaha ay saameyso dhan oo bulshada ay ka wada qayb galaan ha noqoto maamul goboleed ha noqoto dawladda federaalka ha noqoto iyo muxuu ahaay shacbiga in maartay ay arkaan faa'iidada mashruucan ay leedahay maartay arkaan marka runtii waxay ahayd in si fiican muxuu ahaay doodii laga galay dib u eegista loo galay maartay in oo mashaariicdaas ay muxuu ahaay hadda wixii ka dambeeyo ay muxuu ahaay si fiican u socon doonaan bangiga annaga waan isla fahmnay waxyaabihii oo la arkay oo laga bartay muxuu ahaay la saxaya